كلمات وحنوك الدنيا فضيلة الدكتور شيخ شبل إن شاء الله بارك الله فيه. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. waxaan filayaa in lagu soo daro ma ahayn oo dadka loo yimid ee loo dardaarmayaan ka mid ah dadka deegaanka ah dalka loogu yimid akhyaartii ahlul cilmiguna ay martida u ahaayeen ee wasaayaadka iyo dardaaranka looga tagayaan ka mid ah saa darteed wixii dardaarana waxaan dhihi lahaa culimmadu wanaagga inoo dardaarmeen aynu qaadanno. hal midoo codsi ah baan ku dari lahaa oo ku socota doctor cali iyo ragga la midka ah ee ah madaxa iyo hoggaanka mu'tamarkan mararka badan soo noqonaya. mu'tamaraadku waxay leeyihiin dhiba ka soo socda magacaad u bixisaba marka dambe inaad weydo. samee arag ninka khatiibka ah markaad muddo khudbada wado waxaad ka khudbaysaabad garan waaye. cashiradu waxay ku fiican yihiin kitaab xiriiro oo socdaad kolba cashir akhriyaysa. haddii maanta bishan lagu yidhahda muxaadaraad jeedood masaajid 3 jeer ku soo noqoto marka afraad waxa ka sheegtaabaad garan waaye. mu'tamaraadku mushkiladda ugu badan waa mawduuca doorashadiisa. waxaan dhihi lahaa marka dambe noo timaadaan magaaladuna waa weyntahay waddankuna waa badan yahay culammada badan eed noo keenteen in loo qaybiyo oo mu'tamarku qaybo kala duwan oo waddankaana uu ka dhaco oo culummada loo qaybiyo. waxaa kaloon dhihi lahaa qaybo waxyaabaha qaabka loo fulinaya ah iyana in lagu dara waa fiicnaan lahayd haddii la awoodana mu'tamaraadka sidan u waaweyn wax ummadda guud ee baaba'san ee burbursan mushkiladaha markaa taagan xal u noqon kara tala iyo soo jeedinba ha noqotee iyagana in lagu soo daro. shirarka weyn markay dhacaan bayaan gunaanad ah warmurtiyeed baa ka soo baxee kolba dictoorka inuu diyaariyey baan u malaynayaa warmurtiyeedkii mu'tamarkan ka soo bixi lahaa ee mujtamaca muslimka guud ahaan gaar ahaanna soomaalida ku aadana. waa mahadsantihiin. إلهي كوي قاتل كل رقم دردانك علماء أنا قديكو جزاكم الله خير. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا. ميكروفونك الشيخ حسين جيبوتي ودي